shalay ayaa la soo furtay Silvia Romano oo 18 bilood ka hor laga qafaashay dalka Kenya iyadoo u shaqeynaysay hay'ad samafal oo lagu magacaabo Africa Milele 20 November 2018 iyadoo ku sugnayd tuulo faqri ah oo lagu magacaabo Jamaaca oo ilaa 80 kilomitir u jirta magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. isla shalayto waxa ay gaartay dalka Talyaaniga waxaana halkaas ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Talyaaniga eheladeeda iyo sidoo kale shacab aad u fara badan. Warbaahinta dalka Talyaaniga ayaa il gaar ah ku eegaysa hablabiska Silvia oo ay sheegeen in ay ku labisan tahay hab dhaqameedka Soomaalida ee asturan ee diinta Islaamka waafaqsan. saxaafadda Talyaaniga ayaa aad u hadal haysa hablabiska iyo asturnaanta Silvia waxaana ay aad u sheegayaan in Silvia suurtagal ay tahay in ay islaamtay oo ay qaadatay diinta Islaamka intii ay ku xirnayd meel ka mid ah Soomaaliya. ilaha qaar la helay waxa ay sheegayaan in Silvia sidoo kale ay guursatay mid ka mid ah kuwii haystay iyadoo raacday diinta Islaamka iyo qaabka nikaaxa Islaamka. qoraal uu ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku shaaciyay in haweeneydaasi haatan ay xor tahay. waxa uu u mahad celiyay hay'ad sirdoon oo dal dibadda oo uusan magaceeda shaacin. sidoo kale waxa uu u mahad celiyay sirdoonka dalka Talyaaniga oo gacan weyn ka geystay sida uu sheegay. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga Luigi Di Maio oo la hadlay idaacadda iyo telefishinka dawladda Talyaaniga ee Rai lagu magacaabo waxa uu sheegay in haweeneyda samafalka ah laga helay gudaha dalka Soomaaliya lana sii daayay. waxa uu mahad celiyay dhammaan intii ka qayb qaadatay isaguna sii deynteeda. Abu Karday Hadalsan TV Muqdisho.